munaasabadani ayaa si hersara loo soo agaasimay ujeedka munaasabadan maanta lagu qabtay gudaha magaalada Baydhabo ayaa ahaa tababar muddo hal sano ay wadeen hay'adda NRC iyo hay'adda Grado isla markaasna ay ku tababarayeen arday gaaraysa 250 arday. Ardaydani ayaa loo tababarayay farsamada gacanta kala duwan sida farsamada elektarooniga qaybihiisa kala duwan, sameynta mobilada, xirista korontada guryaha, biigelinta xaafadaha, tolista dharka qaybihiisa kala duwan. Ayadoo ardaydaasi ahaayeen 250 arday ayaa haweenka tiradooda gaaraysa 60 arday isla markaasna ayagana muddo hal sano la tababarayay farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan, qurxinta hablaha iyo cilaan saarida. Munaasabadani si hersara loo soo agaasimay ayaa ka soo qayb galay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beelaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka gobolka Bay, kan degmada iyo qaar kamid ah aqoon-yahanada ku nool gudaha magaalada Baydhabo. Munaasabadani tababarka loogu soo xareeyay ardayda ayaa lagu guddoonsiiyay shahaadooyin iyo farsamooyinka ayaga ay barteen alaabtooda. Goobta ka socotay munaasabada ayaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan, malaqshiine oo kamid ah malaqyada beelaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa khudbad dheer ka soo jeediyay madaxa hay'adda Grado Cali Nuur Aadan loo yaqaano Cali Nuur Fodcade. wanaag ummadda soo bixiya ka maasanta tababarka dadka furtiga ka maasanta idii wala bari walaaliin la ku bari ka faa'iideysay dalkana ka faa'iiday hal musmar sidgeedna ka iyo hadii la tusi faa'iido shalay mugordana doob gordaas antaas faa'iido antaasoo maartay dadaasha ka dartu ma yaray unugo yaawshi ma ilaa ugaaraas la foofay ulug ya ugaarti meel gaaban gamoonti gami sidi أو شيء من سيجي أرجع سيرك أنت أصلا لو أتوه أنت أصلا دلالك نسينا متباسل وتتكلم عن حرفة يوم الشقة يسكرها يوم ما الجيل نصوبي ونولدي ولا يبيه شو ولا كترفه مركا دارس وملو إنجيل وقفلوها من هيك سدوا هاي وأنا أسيب استقالنا مركا يوم مركا هو تيمي فلان عن مهنا هذا أنا أسيب يوم حقوقي الدول حقوقي الكلام أو وقتي قارئ هاي سنها مختلف مناسبة وجيت وجوفيو من مكان oo dadka ku geelgalay ku soo hogaamiyo gudoomiyaha gobolka Bay ruuxaantii eediyada farxad weyn ka ama ku hadalay magaca mayna tahay kiilka Grado insha Allah marka may rajayay in aan bana diniga in wala sax laakiin jireedii anaga in wal critical oo mayna tahay oo negative la sheegay laakiin wala ka qaadanaga wal positive oo wal hagaajiyo. dhinaca hay'adda NRC ayaa ka hadlay Cabdirashiid oo ah mas'uulka hay'adda NRC ee Bayo Bokol iyo Gado. Sidoo kale waxaa ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu waaweyn hay'adda NRC oo lagu magacaabo Qaasim Gaawo Ducaale oo ah madaxa hay'adda NRC Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. barnaamijku wali isku saabsan iyo qaabka loo talagalay oo yaraan ku yarway barnaamijku halsina ku hor bilishaar سنتي لما تكون سفيرية باللاودي لما بقول كنتم أبدية من الرئيس كلاس لما بقول كنتم بقول يدوم الجبرو سنالهم مريك الرئيس كريو مركب برنامج كسجوا اللي مثلاً إني دكتور لبر حفظة ويا كشنايس القرآن بشد حكومين نقل القرآن والتر يتحلقنا نقل القرآن بشد برنامج كسجوا أو كسنايس نهاية دكتور أنا تشهد بقول أبري ويكون إذا هماية أو تكاس أبري ولا له هو يسوى أفكار تايلر ويكون توريس الله دواره. أنا أستينا وحارب عينا الخصوصية وحيت كل ما أنتم حينات سنة مولدي أبريل 2013 كي بينما تمت فوش عن قبلين كل وحاويان الحيوت المتقنة يعني ما نفس مع عدان هولا ما تبي دولا قبل ما نوضع نكويين بيجلينا نوضعنا إسكول ويا وحاوي كان وحلوه تلقى لكن حاجة الإسكول وحلوه تلقى تلقى الإسكول كفاية سنة صغار إلا في توجهها gabagabadii munaasabadani ayaa soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoosow qolka kasbanay shalay geek marka kasban hadii afmay la qoroway la akhriyo la kitabuhay tiyo uma iskuule kan kala leh tas wasiirkan sheegay oo balladii qorshiga weeyaa oo ka hay'ad bati shariifki sheegay wala naga degma qorshiga ma yahay اللي إسكولة أفكم هاي كل كبر مرحلة لمديري فرتين وقتي لنقول ده كله قبلا ولا روما
قريسة في مايك يلا قريلة رو عبد القادر جوكر بيدو تشناي